السلام عليكم صاحبيال صباح وناكسن ساكا واللحدي iyo barkii subaxnimo waxa ku suganahay gobolka Sanaag gaar ahaan magaalada Ceergaabo halkan baan xalay seexanay xalay waxaan soo galnay 8 habeenimo alxamdulillah saaka waan soo kacnay balse waxa weeye waxaan geli doonaa safar runtii aad iyo aad u xiiso badan waxaan u soconaa dhanka iyo magaalada Maydh waxa weeye Maydh baan tagi doonaa badanka dadku markay Ceergaabo yimaadaan waxay tagaan daalo intiina badan wad ka dheregsantiin waxa weeyaan waad wada aragteen waad daawateen hadda doontaan waad ku dalxiisteen balse sababtay u kaliftay inaan daalas saaka tagin aan Maydh tagno waxa weeyaan Maydh taariikh fara badan baa ku duugan wiligeena ma arkin cid ka hadlaysa ama cid tagtay ama waxa weeye cid soo bandhigtay haddii jirtana way yar tahay waxa weeyaan saaka waxaan u bixi doonaa dhanka iyo magaalada Maydh waxaan sii mari doonaa dowgii dheeraa ee Soomaaliland ugu dheer ee la yiraahdo dowga tabca baasaa looga daadigiya waxaan sii mari doonaa tuulooyin fara badan waxa weeyaan dowga tabca laftiisa taariikh fara badan baa ku duugan insha Allah waxa weeyaan wax fara badan oo aad jeclaysan doontaan godkii daloolay Talyaanigu dalooliyay baa ku yaala waxa weeye godad kale ku yaala halkii hawada isku kala bedeshaa ku taala waxa weeye meel daruuruhu ka hooseynayaan baa ku taala dowga laftiisa laga dhamaanayn beeyadii baa ku taala iyo maydgii iyo moxorkii sidoo kale waxaan sii mari doonaa waxa weeyaan xawaashi ciise waxaan sii mari doonaa gurigiisa Maxamed Cabdulla Xasan halkii uu ku tababari jiray ciidamadiisa halkii ilaaladiisa kori jireen meelo fara badan oo xiiso leh tagi doonaa insha Allah waxa weeye muuqaalkan haddii aad furtay xidhin baan ku oran lahaa waayo waxaad ka dhaxli doontaa aqoon fara badan insha Allah ta'ala khayr baan idin wada rajeynayaa insha Allah waxaan idin leeyahay daawasho wanaagsan muuqaalkan hadduu ku soo gaaro like subscribe share kana mid noqo asxaabta barta ku xidhan daawasho wanaagsan baan idin leeyahay والله فريد مقعاه إكرام أنا عبد الرحمن بالله برشلونة قعدت قال ميدك فريد halkan aynu taaganahay waa toga ciise ceelaya dhagax weyn baa iga dambeeya dhagaxa wadooda yaa banti dhagaxan waxa weeyaan dhagaxii uu ku tababari jiray sayidku ciidamadiisa fardooda fardaha dhagaxa inta leeg ayaa laga boodsin jiray waxa weeye deegaankan aynu iminka marayno sayid Maxamed Cabdulla Xasan baa deganaa jiray gurigiisu waa halkaa waynu sii mari doonaa sidoo kale buurahaas waxa weeye waa buuruhu sayidku laga ilaalin jiray waxa weeye gaarkiisa iyo ilaaladiisu buurahan bay saarnaan jireen oo ka ilaalin jireen taxiisaale waxa weeyaan sayidku sidoo halkan u deganaa waxa soo weeraray cadan baa laga soo weeraray oo waxa weeye markii diyaaradaha lagu soo kiciyay gabaygii wuxuu tiriyay marka coomaadayaal duulay cadan ka keeneen adiguba caqlaad leedahay carar maxaa dhaama marka wuxuu aaday dhanka iyo deegaanka taleex buu aaday markaas ugu dambeysay sayidka halkan sayidku waxa uu kamid ahaa dadkii ugu caqliga badnaa ee soo mara Soomaali waxa weeye uguna taatikada badnaa meeshan uu doortay ee uu deganaa waxa weeyaan waa meel runtii aad iyo aad u adag qalcad rabbaaniye weeyaan afarta koonaba waxa ka xiga buuro sida aad wada arkaysaan waxa weeye meeshan cidi kamay saari karahayn waxa kaliya ee ka saari karaya waxay ahayd maxay dhahdayay diyaarad marka diyaaradda loo dalbaday maahana inta kale oo dhan waxa weeyaan uu ku jiray sayidku waxa uu ahaa runtii dadkii ugu qiimaha badnaa ee Soomaalida soo maray sayid Maxamed Cabdulla Xasan waanaga soo gaarnay guriga sayidku uu dudumay waana samankii lagu dhuftay iyo diyaaradihii duqeeyay xagga sare ka soo duqeeyay sidii dib looma dhisin oo waxa weeyaan markaasay dudumiyeen diyaaraduhu balaynu xagga sare balaynu u baxno waxa weeyaan waa dhagaxaan laakiin dhagaxaan kaliya maaha waa dhagaxaan taariikh ku duugan tahay waa kan hogi waa kan sida halkaa waxa laga arkayaa qoryihii gurigu ka samaysnaa halkan taariikh fara badan baa ku duugan buurta iga dambaysaana sidii aan horeba uga dhawaajiyay waxa weeye ilaaladiisa kori jirtay maqrib iyo maqshir baa laga arkayaa ilaa halkaas laga arkayaa waxa weeyaan waxa soo socda iyo waxa ka soconaya oo dhan qofku markuu halkaas sare soo fuulo waxa weeyaan aad bay u dhartay buurta meeshan aynu imika soo gaarnay waa xawaashi ciise
wuxuu ku yaalaa deegaanka ciise ceeleeye ama ceelduur waxa weeyaan qudbigani maaha qudbigii berigaa la dhisay oo waxa weeyaan waa qudbi iminka la dhisay waxa dib haween baa xabaasha lagu sameeyay balse waxa weeye xabaashiisa halkan ay ku taalaa gurigii sayidkuna halkaas uu inaga xigaa waxa weeye gurigaas waa guriga laga ilaaliyo xabaasha waxa weeye waxa jooga ilaalada xabaasha halkaasna gurigii sayidka inaga xiga oo wali waxaynu ku dhex jirnaa togii ciise ceeleeyeen ku dhex jirnaa waxa weeye sidaan hore weydii ku sheegay dhulkan waa dhulkii waaweyaasha waa ardul ajdaa weeyaan waxaan taaganahay iminka dow dheer oo wadadan magaceeda waxa la yiraahdaa hawli ku hadhay hawl baa ku hadhay magaaladii oo dhaweyn naga hooseysa sidoo kale halka waxa inaga xigta wada la yiraahdo awrgaab oo waxa weeye iyadana aynu ku daadegi doono runtii meeshan aad iyo aad bay qurux badan tahay waxa weeyaan dowga sheekh halkan baa ka dheerba marka la eegayo dhererka dowga sheekh halkan baa ka dheerba wadadanna maaha wadan la dhisay laakiin waa wadan natural ah hadda waxaan taaganahay godka weyn ee ku yaala wadada tabca runtii meeshan buur bay ahayd weyn godkan waxa dhisay Talyaanigi balse waxa ay ugu tala galeen inuu dumo 1948 intaas oo dhan uu dumi waayay halkaas ay taariikhdu kaga qoran tahay bal aynu wada eegno oo taas waxa lu maleeyahay si fiican u muuqanayso 1946 ayaa godkan lagu tala galay inuu dumo balse uu dumi waayay meeshani waa haadaan weeyaan waxay ku taalaa godka dhexdiisa waxa weeyaan haddii aan sidaa mar labaad haddaan lugta sidaas yidhaahdo waxa weeyaan waan ka dhacayaa waa meel aad u khatar badan laakiin aad u qurux badan gaarigiina uu naga tegay baan malaynayaa halkaa hor jooga halkaa waxa sii socda halkan ma malabkaa lagu iibiyaa haye ulahan usha imsa siinaysaa aad bay qurux badan tahay ushan hadiyad baad noo siisay soo ma adeer yaa aad iyo aad baad u mahadsantahay usha hadiyad baa naloo siiyey waxaa la yidhi abeesada saas unbaad u saaraysaa abeesada waa bahal yaroo maska oo kalaya saasaad u saaraysaa oo iska dhimanaysaa waxa weeye horta ma war sugan baa warkaas waa ushi abeesada nool markaad sidaa u saarto bes way dhimanaysaa warkaas war sugan bay ma la huwa dowgan haddaynu maanta oo dhan isnidhaahno waxa weeye taariikhdiisa cabira wax aynu cabiri karayna maaha waxaynu ku qaadanaysaa maalmo hadda saanu u soconaynay waxaan la kulannay godkan waxaa la yidhaahdaa sug godka miinada la yidhaahdaa waxa uu ku yaalaa bartamaha waddada waxa weeyaan waa kaas waddadiina waa tan god yar oo naxdina balse waxa weeyaan taariikh badan gudbinaya dadkii hore godadkaasay samaysay adeeda gaariyo lahaa tilmaame erkoodan basari ku horo dunida maashay waa gobe habsidoodii bishaan daymada ka bogano deelaada wow dawiya namoge
idaashaday riyataan doonisteedii gurigada dariskula hajiray dabayshiyo dhaxanta dayreed buskeetii iiga noqolayd sidaan wadada u maraynay waxa aan u istaagnay horta wadadaan maraynaa wadada aadka u khatarta badan halka dawgaasaan maraynaa dawgana waa dawgii tabca waxaan u istaagnay geedkan waxa weeye waa beeyo sidaad adiguba ka dhawaajisay waa beeyo geedkani bal noo sharax geedkan sharaxaad naga sii horta beeyadu gabi ahaanteed waxay u kala baxdaa laba nooc way waxa la yiraahdaa moxor iyo maydi marka waxa weeyaan number 1 iyo number 2 inta badan mayda la isticmaalaa maydidu waa geedka ugu wanaagsan waa ka xanjada noqda waa ka cadarka noqda waa ka wax walba laga sameeyaa marka imika kan oo kala kani waa maydi geedka mayda leeyahay beeyaha hadaad maqasho meel ciida kama baxdo horta beeyo dhul banaan haba ka doonin dhagaxaas ka baxay dhagaxa iyo la ka sii daran ala aska amarka ala aska soo marba marka geedka dhagaxan beeyadu ka baxda geed waxa ka baxda laag iyo dhagaxashi mid dhul ku taala ciid arkiba meesid tusaale ahaan markaad geedka imika beeyada aad maqashay laga keenayo geedka magaciisa beeyaa ta laga keenay beeyada Soomaaliya in foox oo kala Soomaaliya waa mujar wali musafir bay kala noqdaan fooxa oo kale nabar imika ku yaalan sanadkiiba 3 bilood baa la irmaanaysiiyaa marka kan waa la irmaanaysiiyo reer waa la isticmaalay waa la irmaanaysiiyo hadda kal jafkiisa marka irmaanaysiiyo dad kale walgalay ardaa loo kale tusaale ahaan ardaaga hadda maqasho waa ilaa xaga buurta afkeeda ilaa buurta afkeeda ardaaga nin baa iskale oo waxaan irmaanaysto waa yimaada mangaaf buu soo qaataa wuu ku dhuftaa mangaafka saasuu ugu dhuftaa afka dadna caanaha ka yimaada ayaa beeyada noqda marka caanihii baa beeyadii waxay u kala baxdaa foox iyo faskuna waa xabagaha waa xabagta faska leeyahay xabagta cadcad ay faska leeyahay marka labadaas ba u kala baxday waa la soo gulfidaa 3 bilood ka bacdi baa la yimaado 3 bilood ka bacdi marka la yimaado ayaa mangaafka iyo la soo qaataa iyo bahalkii tabeena wax lagu soo guraa waa tii la siir maanaysiistay 3 bilood koor tabeena wixii caani markay ka soo dareereen adkaaday ayuu soo guranaya dadna foox uu noqonaya beeyu noqonaya marka saas lagu soo qaado lagu soo iibgeeyaa markaas haddana la sii kala sifeeyaa oo la kala saaraa budo iyo loo kala saaraa xabag iyo qoloftaas lagu dhimaa nimcada waxa weeyaan geedahaas waxaas oo dhan waa beeyo sidoo kale geedaha imika halka isaga yaala waxa weeyaan waa beeyo laakiin waxaad ogaataa markasta beeyo waxaad ku taalaa laag iyo buur dhagax dishi marna lama soo heliyo marna halka hoos ciida ku taala waa dhagaxaasun sida imika dhagaxan imika aan dul taaganahay marka haba sugi beeyadu waa taa waa dhowr nooc waa madarmoge ereyada madarmoge halka leeyahay waa beeyada madarmoge leeyahay waa beeyada ugu badan ee gobolka ku taala berigii hore de wadanku lama soo gaari jirin waska adkaa qolaa ilaahay u soo diray urur yaro dheed la yiraahdo wadada sameeyay waanu ku saarki doono kaamkiisa xagga hoose yaalaan ururka dheed wax badan buu wadada ka qabtay runtii markan wadada dhaafno intan ay sameeyeen adaa yaabi doono halka maxaa ka soo dooray acuud billahi min shaytaani laakiin hadda aad iyo aad ku raaxaysanayna dalkana dhinaca fadhida waxaan isku daynaa inaynu beeyada duubno dabadeetana gaarigii baaba naga tegi gaarigu maxaa goosu ka soo baxaya maaha waa taas beeyadaasaan duubaynay waxa weeyaan gaarigiina xagga hoosu jooga marka meeshaanu joognaa waa daw waxa weeye halka sare aan markii hore joognay gaarigiina waa kaasoo wareegay حاجة سرعة كسب واحدة بقى. كالي بسكل وين صعر waxaa naga hooseeya tuuladii rugay waxa weeyaan qabcadan iminkaan taaganahay wadadan waxa la yiraahdaa in saddexda is saaran oo loo soo gaabiyay saddexda wado ee is saaran waa saddex
waa sida bridge ko kala waxa waa saddex lakabo oo saarno wadadu kolba marka ka dambaysa way sii dheeraanaysaa marka waxa weeyaan waxa xiisaha leh halkan uu istaagnay waxa weeyaan hawadii baa isbedeshay hawada dhinacanna waa qabow dhinacanna waa kuleyl hawadii way isbedeshay totally qabow iyo kuleyl bay isku bedeshay mar kasta oo meed loo sii dhawaado waxa laga sii baxayaa qabowga waxa weeyaan meed waa xeebo waxaanu soo gaarnay tuulada rugay tuuladani waa tuulo aad u kooban balse waanu ka shaahayn doonaa halkan maxaa yaala horta tuulada ninkani markaanu saa gaariga uga soo degnayba daf buu yidhi muqaayadda yar marka bal waxa uu ka soo helay baynu eegnaa anigii warrabo halka waxaan ka soo helay hal kimis la dhaho adduunyada ilaahay aan ugu jeclaa adduunyada ilaahay kimista taariikhna way iga soo martay anigoo yar ayaan hooyaday waxaan ku wuri ma garanaysaa hooyo jannada kimis ma lagu dibaa qiimaha ila taagay waqtiga jacayl aan u qabo hooyaday baa igu tiri jannada kimis aad u galaysay bariga waar jannada wax ka qiimo badan baa yaalee ana ilina arag Allah yarxam arraahimiin maskax bini'aadan la ku soo dhicina hooyo ana 20 marka shan yaacun maashi maalintaas aan ka cilmay horta كمست هالكن ما حدا يرتاح كمست هالكن كمست هالكن ما حدا يرتاح كمست هالكن ما حدا يرتاح عانا قرورة يصبك سحينة وصافية يا سلام يا سكرت ولا قطري مدوي أنا ليرك قشافتي سيبان وش الناس نارك تان باش واتي حوي واتمس القطري عانو يصبك سحينة يرى السكرة شاهي نواك ماشي خدا قاري بقى عرّي ورميل تجي معي كده واسكبك ساعة خير أنت وين أمك ها مير واحد نوتش عاني يصبك وين عاني يصبك مير لا لا 160 كيلومتر بنوتش والله هذا معاه صاحب وبيسيدي ويا الشيخ جنون عبد الشيخ ويا والله بالله تنوا بيصدا مير بيصدا مير من وين قال ولا هو بيصدا في قبل لا ربي الرحمن وحدان نفسه وين هلكن ويسنا المره بعد gabadhan jeclay adduunyada ugu jeclay soo badan jecel ma helinay aan keeno bisada soo kordhi kama go'ayso aga ana garoor ka gareeya ha huna waxa ana garoor ka waa ka ana garoor baashan maxaa ku jira waxa ku jirta subag baa ku jira waxa ku jira sokorti baa ku jirta ana garoor ka baa ku jira xalaska ya salaam waa habeen waxa waa goor habeennimo waxay ku sii siqaysaa 7 habeenimo waxaan halka ku cunaa kimis la caana garoora sonkor iyo subag sixin le waliba subag sixina oo saafiya ugu dilin hadanaan كنت قاعد بنشده يا حماني كيس وزان كم علينا صوري صور رمى والله هو ملب ويه ملب والدقيقة دي ما نسنيه قاعد يقولي ما يه وكبر يا والله سنيه علي صفر علي فين magaalada halka inooga leeranaysa waa magaalada Maydh waxaan u soo soconay 6 saacadood waxaan ka soo baxnay magaalada Ceergaabo saacadu markay ahayd 2 duhurnimo haddana waxay ku sii suqaysaa 8 habeenimo 6 saacadood inkastoo safarkayga aanu meel badan istaagnay oo aan doonaynay inaan taariikh fara badan ka sheekayno haddana waxaan taaganahay duleedka magaalada Maydh waa kaas gaarigaas aan la soconay insha Allah بريتولي مقال هذا قروح بدن بلدي كسر دوبي دونا ميد يا وحيابها عن كتاي